odaygani waa garaadka absame wuxuu sheegay in reer laascaanood ay u xiiseen isla markaana ay u hiloobeen Somaliland way la wada soconaa laascaanood xaaladdeeda waa la yaba kama jiraan nolosheeda way adagtahay marka muuqaalkan inuu yar daawan oo isku soo laabanayna abtigii xabadii oo ka dhaxdhacaysa taa inaad nala qaadataan waxay tilmaamaysaa dhaqanka Soomaalida iyo hoggaanka dhaqanku miisaanka iyo wanaagga siduu u jecel yahay aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa walaalayaal waxaanu ka keennay laascaanood maanta taadna tirahdeen way idin hiloobeen nabadaas ay idinla jecel yihiin way noo dhiibeen wax walba dhulkaan dhigaynaa bay yiraahdaan sidaa noo tirahdeen idinka iyo iyagaba waxaan ilaahay uga baryaynaa inaynu nabadda aan makansanno oon qaadanno waayo muuqaalka markaan odayga intaa kaga nimaadno nabaddu waa wax aad u qaaliya nabadgelyaduna waa shay muhiim ah nabaddu waxay horumar lagu gaaraa oo qiimo lagu yeeshaa oo sharaf lagu yeeshaa markaad nabad haysato nabadda adiga ku nool ee yadu kuma noola nabadgelyadu meel kastoo la wada joogo waa wax aad u qiimo badan adduunka haddaanay nabadi jirinna wax kala hagaagayo iyo wax soconaya toona ma jiraan hadalka waxaan uga dan leeyahay haddii aan caawa idhaahdo nabadgelyada ha la ilaaliyo waad ogaan doontaana 90% dhaqanka ay leeyihiin laascaanood huwanta ka dagaalamaysa ee baraha bulshada u qaabilsan waxay yaqaanaan inay idhaahdaan way baqanayaan dhaqankaasay yaqaanaan marka waxa weeyaan nabadda laascaanood lagaga wada hadli maayo xukuumadda Somaliland iyo khaatumaan waxa la sheegayaa ma wada hadlayaan waxa wada hadlaya SSB iyo inamada yaryar ee waxa weeyaan isku sheegay inay dawladda yihiin kuwaas ma wada hadli karaan xukuumadda Somaliland markasta nabadgelyo way ka shaqeynaysaa no xukuumadda Somaliland nabadgelyo way ka shaqeynaysaa laakiin wax khaatimo leh xukuumadda Somaliland ma aaminsana understand